guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta waxay kulan la qaateen gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeke Ismaan Ciye. Guddigani oo xafiiskiisa kula kulmay gudoonka wasaaradda waxbarashada ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeke Ismaan Ciye waxaanu warbaahinta ugu warramay waxyaabaha ay ka wada hadleen. waxaa maanta xafiiska nagu soo booqday guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulay waxay u socdeen hawlahoogii shaqo ee ahayd inay soo maraan xafiisyada dawladda. Kulay anagu waxaan adeeg bixiyaashii wasaaradda waxbarashada gaar ahaan gobolka Awdal inaadna soo martaan waxaan gacanta ku hayno iyo shaqada aan hayno iyo waxay tahay inaad nala ogaataan annaga markaa muhiimad gaar ah noo tahay oo qofku waa inaad waxaan u qabanayo mar sidii saxda u socdaa wadadu ka beersan yahay laakiin waan soo dhaweynaynaa diyaarna waxaan u nahay inaan nila shaqeyno maadaama golihii wakiilada tihiin ee shacabka oo dhan ka wakiilha. geestiisa xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi Siraadle oo ah gudoomiyaha guddigaasi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal mudane Jeke Ismaan Ciye warbixintii intaan gobolka joognay malaha saaxiibadayna waa ay fadhiyaan ugu dheerayd ugu tafaasiisha badnayd intaan gobolka joognay buu nasiiyay waxaana muuqatay wasaaradda waxbarashadu inay shaqo badan ay hadda gacanta ku hayso labadii sanadood ugu dambeysay hadda aanu eegaynay 2018 2018 ay shaqo badan qabatay waxyaalaha gaarka noo taaftayna waxa ugu weyn oo kamid ah arinta ku saabsan waxbarashada dhigoolayaasha markaad ka timaado deegaanada kala duwan ee ay ama dhisme ama nafaqeyn waxaan feedingka loo yaqaano oo ardayda dugsiyada primary-ga ay ka qabteen haddana waxyaalaha ugu muhiimsan ee sida gaarka cawaadiftayda u taabtay waxaa ka mid ah tadhagoolayaasha oo ardaydaasi ay filiqsan yihiin min dugsi hoose ilaa jaamacad yani arday dhagoolayaal ah oo dugsigii hoose dugsigii dhexe dugsigii sare ilaa jaamacadii ah waa shaqo wanaagsan gobolada kalena oo gobolka malaha kaliya ilaa xadka ay taagan tahay arinta waxbarashada dhagoolayaashu arday fara badanna ay hadda ay ku jiraan dugsiyadii ta kale hadda aanu halkan aanu ku falanqaynayna waxay ahayd baahida gobolku qabo oo sida uu isna nooga warbixiyay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolku ay laba qodob ugu weyn yihiin oo ah arinta ku saabsan waxa loo yaqaano TVET technical vocational education waxbarashada farsamada gacanta iyo library-ga waxaanu rajaynaynaa labada qodobna miisaaniyadda soo socota in aanu culays ka saari doono xildhibaano ahaan. Xuseen Xaatiye Jamaa Xuseen Gafne Universal TV Boorama.